geedkan muringa waxaa si aad ah ugu badan macdanta iyo fitamiinada qaybahooda kala duwan oo sida hortiin aad ka arkaysaan macdanta ironta macdanta calciumta oo aad muhiim ugu ah lafaheena fitamiin C oo muhiim u ah difaaca jirkeena iyo maqaarkeena fitamiin B6 oo muhiim u ah shaqada maskaxda iyo neerfaha macdanta potassiumta oo muhiim u ah unugyada jirkeena hadday noqon lahayd kuwa neerfaha iyo kuwa murqaha iyo wax la mid ah fitamiin A oo muhiim u ah caafimaadka indhaheena fitamiin E oo muhiim u ah caafimaadka maqaarkeena macdanta magnesiumta oo muhiim u ah wadnaha lafaha murqaha iyo neerfaha dhammaan marka maadaama macdantan iyo fitamiinadan kala duwan laga helo ayna qabtaan shaqooyinka kala duwan ee aan sheegnay yacni hadduu qofku isticmaalo geedkan qaabka loo isticmaalo gadaal ayaan ka sharxi doonaa insha allahu yani haddii uu isticmaalo geedkan faa'iidooyinkaas ayuu ka helayaa waa yacni si guud macdantii fitamiinada laga helay faa'iidooyinkooda marka see loo isticmaalaa saa arkaysaan qofka hal qaando ilaa laba qaando ayuu ka isticmaali karaa marka qaadada midda laga hadlayo middan teaspoonka loo yaqaano middan kale ma ahna oo tablespoonka loo qaadooyinka ayaga kala duwan yani middan inta badan anaga isticmaalaa balse middan yar waayo oo loo yaqaano teaspoon markaasoo hal xab ama laba xab ka isticmaali karaa wuxuu ku darsan karaa saa arkaysaan biyo caadi ayuu ku dari karaa sidoo kale wuxuu ku dari karaa biyaha oo qumbaha ayuu ku dari karaa sidoo kale wuxuu ku dari karaa biyaha tufaaxa ayuu ku dari karaa biyaha oranjada ayuu ku dari karaa laakiin biyo caadi ayuu ku dari kartaa waxaana wanaagsan sida hortiin aad ka arkaysaan subax aroortii qofku inuu cabo hal galaas cabo cabitaanadan kala duwan ayaa ku darsan kartaa ama biyo caadi ayaa ku darsan kartaa xilliga aroortii labadaba intaba waa samayn kartaa sidoo kale waxaa jira waxyaabo laga sameeya supplements iyo maaragta kaniiniyaal iyo wax lamid laga sameeyaa jira saa arkaysaan balse waxaa la dhahaa yacni faa'iidooyinka ama nafaqooyin kala duwan aan soo sheegnay aad ayay ugu yaryihiin oo qodobkooda aan kusoo sharaxnay marka ay kaniini oo kale yihiin marka ay budud yihiin ayaa fiican oo yacni asalka ay yihiin ayaa fiican intaan lasoo warshadaynin sida qormada hortiina baa ka arkaysaan sidoo kale caleenta iyo markii laisbarbar dhigo mirahan yaryar oo leeyahay saa arkaysaan hortiina yani caleenta ayaa nafaqo badan ayaa fitamiino iyo macdan badan sida hortiina aad ka arkaysaan marka loo barbar dhigo yani mirahan yaryar oo leeyahay haddii qofka uu shiido yani caleenta inuu shiido ayaa ka faa'iido badan sida hortiina yani aad ka arkaysaan sidoo kale waxaa jira arrin kale oo muhiim ah kaasoo ah in isticmaalka geedkan caleentiisa ay ku jiraan wax loo yaqaan anti-nutrients kuwaasoo yareynaya ama hoos u dhigaya nuugitaanka macdanta iyo borotiinada kala duwan marka in yacni xilliga cuntada qofka oo isticmaalo yacni ma wanaagsan oo waxaa wanaagsan xilliga aroortii qofka inuu isticmaalo ayaa wanaagsan waa sababta loo dhaha xilli hore aroortii isticmaal marka inaan fahanteen ayaan rajeynayaa geedkan faa'iidooyin kala duwan ee laga helo qaabka loo isticmaalo inaan fahanteen ayaan rajeynayaa insha allahu tacaala cashirkeena intaasay kusoo koobeynaa asalaamu calaykum